kulanti waxaan dhammaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkani isbuucii tagay oo maalin walba oo talaada aad naga dhageysataan Ismaaciil Kulmiye Show iyo Daily Juba waxaad naga daawan kartaan barta aanu baraha bulshada ku leenahay sida YouTube-ka iyo Facebook-ka waxaad kaloo naga dhageysan kartaan page-ka aanu ku leenahay Anchor FM sidoo kale Spotify iyo Apple Podcast qodobada aan maanta barnaamijka idinkugu hayo waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo digniin culus u diray odayaal dhaqameedka beelaha la dagaalamaya kooxda Al-Shabaab gobolka Gedo oo ay loolal ugu jiraan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland dhageyste maxaad ka taqaanaa aaladda loo yaqaan cloud seeding-ka madaxweyne xasan sheekh oo lagu eedeeyay inuu hubeynayo qabiil ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed Al-Shabaab ayaa bilaabay qorshe ay ku kala furfurayso qabaa'ilada qaatay hubka kuwaasoo ka dhidhiyay xukunka Al-Shabaab sida uu Daily Juba helay wararku waxay sheegayaan in Al-Shabaab u soo dirtay fariimo odayaal dhaqameedada ka soo jeeda qabaa'ilada hubeysan si ay u dhigaan hubka ayna isaga baxaan dagaalka sida ay wararku sheegayaan arrintaasi waxaa si dhow loogu soo gudbiyay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo isla markaana beeluhu ay ku adkaysteen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayna meel ku laaleen fariintii Al-Shabaab wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Maxamed Fiqi ayaa bilaabay inuu kulamo la qaato odayaal dhaqameedyada ka soo jeeda beelaha hubka u qaatay iska dhiciska kooxda Al-Shabaab isagoo isla markaana kala hadlay in dowladdu uu diyaar u tahay dhiirigelinta kacdoonka shacabka ayna kula talinayso inaysan dhag jaraq u siin dalabka ka yimid kooxda Al-Shabaab waxa uu kaloo sheegay in Al-Shabaab qorshahoodu yahay gumaadka shacabka gadooday iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in qorshahoodu yahay mid kaasoo ah inay ka xoreeyaan Al-Shabaab deegaanadooda waxay kaloo dalbadeen in dowladdu la soo gaarto agab ciidan iyo hub sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dowladdu la garab taagan tahay haddii ahaan lahayd xagga saanada ciidanka iyo ka warqabka qoysaskii ay kasoo tageen sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xoojinaysa la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyadoo isla markaana qorsheynaysa in dhawaan loo diray ciidanka sida gaarka oo tababaran gobolada Galmudug iyo Hirshabelle halkaas oo ka dilaaceen kacdoon shacab oo ka dhana kooxda Al-Shabaab Daily Juba ayaa helay xog ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku amray taliyaha ciidanka lugta General Bixi in loo fududeeyo gurmad walba oo looga baahdo meelaha ay dagaaladu ka socdaan wixii warar ku soo kordhay kacdoonka shacab waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena dambe insha Allah xog aanu ka helnay ilo ku dhow baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay kulan ay albaabada u xiran yihiin ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka soo jeeda beesha Hawiye sida ay inoo xaqiijiyeen ilahaasi waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsaday xildhibaanadaasi inay isugu yeeraan shirweyne ay yeelanayso beesha Hawiye taasoo lagu taageerayo maleeshiyada loo yaqaan macawisleyda ee dagaalanka kula jirta kooxda Al-Shabaab qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah in dagaalka Al-Shabaab loo bedelo qaab qabiileed taasoo dowladda federaalka Soomaaliya ka taageeri doonto qabiilada hubka iyo dhaqaalaha Maxamed Ibrahim Maclimu oo ah xildhibaan laga soo doortay dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa bartiisa baraha bulshada ku soo qoray eedayn iyo guubaabin ku socota qabiilada kale si ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab hadaladiisii waxaa ka mid ahaa in qabiilo gaar ah ay Al-Shabaab la dagaalamaan sax ma aha sababtoo ah waa argagixiso abaabulan oo xalaawayaal ah kuwaasoo shacabka Soomaaliyeed ka baada lacag xad dhaaf ah Hiiraan in xawaadle keligii oo Al-Shabaab kula dagaalamo sidoo kale sax ma aha waa in qabaa'ilada kale ee Hiiraan ayagana dagaalka ay soo galaan waxa uu kaloo raacsaday dowladuna waa inay hoggaanka dagaalka qaadaa oo ay taageero ciidan iyo sanad basiisa hadaba mudane xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa maxaa ku kalifay inay isticmaalaan maleeshiyo qabiileed iyadoo ay dowladdu federaalka haysato 20,000 oo ciidanka xoogga dalka ah iyo 20,000 oo admis ah kuwaasoo u jooga dalka la dagaalanka argagixisada isbuucii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday hadalhayn iyo su'aalo ah maxaa keenay in dowladdu hubeyso qabiilo miyaysan dowladdu ku aamin qabin ciidanka xoogga dalka walow uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey u sheegay inuusan aaminsanayn in Soomaaliya yeelato ciidan xoog leh dadka u hunguriyeeyay siyaasadda ayaa walaac ka qaba hubeynta maleeshiyo qabiileed taasoo ay sheegeen inay ku dhammaan doonto cawaaqibnimo xumo sidii kuwii ka horeeyay siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa walaac ka muujiyay hubeynta qabiilada gobolka iyadoo la wada ogyahay wixii ka dhacay magaalada Marka weli waxaanu ku jirnaa barnaamijkeennii isbuucii tagay oo maalin walba oo talaada aad naga dhageysataan Ismaaciil Kulmiye Show iyo Daily Juba waxaad kaloo naga dhageysan kartaan bartaanu baraha bulshada ku leenahay sida YouTube-ka iyo Facebook-ka waxaad kaloo naga dhageysan kartaan page-ka aanu ku leenahay Anchor FM sidoo kale Spotify iyo Apple Podcast
waa xagaa. Dhanka kale, baarlamaanka Jubbaland ayaa muddo kordhin u sameeyay Axmed Madoobe taasoo dhalisay diidmo adag oo ka timid siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka, balse taasi waxay u wada xaartay in dowladda goboleedyada kale ay ayagana muddo karsi samaystaan marka laga reebo Puntland. Balse Jubbaland waxay uga duwan tahay gobolada kale. Waa qaab doorashada uu ku yimid Axmed Madoobe kuma imaan doorasho loo dhan yahay oo la mid ah tan ay ku yimaadeen gobolada kale. Sanadkii 2019 doorashadii ka dhacday Jubbaland ma ahayn mid loo dhan yahay, taasoo keentay Gado oo ah gobolka ugu weyn ahna mid ka mid ah saddexda gobol ay ku midaysan yihiin maamulkaasi kuma aysan qanacsanin hab doorashadii uu ku yimid Axmed Madoobe. waliba siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi oo ka mid ah tiim Axmed Madoobe iskaba dhaafay taageero ay ka helaan shacabka Gado ma imaan karaan gobolka ay ku matalaan xukunka Kismaayo. dowladii shacbiyadda weyneed ee markaasi jirtay oo uu hogaaminayay mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaguna way iska diideen oo isla markaana lagu eedeeyay inay qabiileynayaan doorashadii boobka ahayd oo ku yimid Axmed Madoobe. xalaaleyntii doorashadii Axmed Madoobe waxaa horboodayay siyaasiyiin ugu horeeyay madaxweynaha hadda xilka haya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. god qayaano ha qodin haddaad qodan ha dheereen waayo xujadii uu shalay keenay ayaa maanta xalin uga baahan. ila wareedyo ku dhow fila Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda dhexe sameynayso qorshe siyaasadeed oo ka dhan ah Axmed Madoobe. qorshahaasi wuxuu yahay in xeelad siyaasadeed loo isticmaalo duruufaha jira awgeed. dhanka kale, Axmed Madoobe oo ka faa'iideysanaya duruufahaasi ayaa u sheegay hoggaanka Gado in isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay go'aan ka gaareen arrinta Gado. rag uu hogaaminayo Farataag oo ka socda dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku fashilmay isku dayo lagu doonayay in Gado la hoos keeno dowladda federaalka Soomaaliya. dhanka kale, Axmed Madoobe oo ogsoon in Gado loo isticmaali doono ayaa sameeyay isku dayo ku aadan wadahadallo oo la yeesho hoggaanka Gado, balse iyaduna fashil ay kusoo dhamaatay. dadka u kurgala siyaasadda ayaa sheegaya in damal-jadiid qorshahoodu yahay in Prime Minister Xamse Cabdi Barre loo dhiibo hoggaanka Jubbaland si ay saameyn ugu yeeshaan doorashada soo socota. sida aan horey idiin weydiiyeyba dhegeystayaal, maxaad ka taqaanaan roob abuurista ama cloud seeding-ka? inta badan Soomaalidu kama warqabto waxa loogu yeero cloud seeding-ka. cloud seeding waa hab casri ah oo roob looga dhalinayo daruurta caadiga ah iyadoo markaasi la isticmaalayo daroon wada walxo kiimikaal ah sida potassium chloride and sodium chloride, taasoo lagu daadinayo daruurta kadibna ku qasbaysa daruurta inay roob ahaan usoo daado. waxaa bilaabay isticmaalka cloud seeding-ka ama roob abuurista wadamada China iyo India, taasoo isla markaana keentay in labada wadan ay isku eedeeyaan in daruurta midba midka kale kala wareega. China ayaa ku dhawaaqday qorshe weyn oo looga dhalinayo daruurta roob, taasoo looga hortagayo abaarta ba'an ee ka jirta gobolka Xinjiang, kaasoo dhul baaxaddiisu ka weyn tahay wadamo badan oo Yurub ku yaala. balse waxaa walaac ka muujiyay India maadaama gobolka Xinjiang yahay meesha uu ka yimaado webiga ugu weyn ee India, kaasoo loo yaqaano Ganges. India ayaa walaac ka qabta haddii China isticmaasho aaladaasi ay wadamo badan oo mara webiga Ganges ka dhalan doonto daadad xoog badan. dhanka kale, wadanka aan dariska nahay ee Ethiopia ayaa bilowday isticmaalka cloud seeding-ka. haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya maadaama webiyada Juba iyo Shabeelle ay ka yimaadaan wadanka Ethiopia? midda kale, cloud seeding waa tiknoolajiyad casri ah oo looga hortagi karo abaaraha kusoo laabtay Soomaaliya, taasoo malaayiin dollar ku kacda sanad walba. maxaa diiday in dowladda Soomaaliya ka codsato ama ka iibsato dowladda China daroon loogu isticmaalo cloud seeding-ka Soomaaliya inay tuugsato sanad walba? waa ceebtaa beddelkeedu waa in dowladda Soomaaliya ay maalgashataa qaabka roobka looga dhalinayo daruurta, taasoo anfici doonta xoololeyda iyo weliba beeraleyda dalka. intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii. tani iyo kulanti dambe waxaan isku ognahay inaan ka shaqeyno danta qaranka Soomaaliya anagoo ka fogaanayna qabyaaladda, waayo Soomaaliya waa hal qabiil oo dega geeska Afrika. anigoo ah Ismaaciil Kulmiye waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo waxaan